بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa madasha 60 madasha waxa martiin ugu siyaasi Soomaaliyeed oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwooda ugu hadalka cad oo magaciisana la yiraahdo Cali Maxamed Axmed looguna yeero Cali Daacuun oo haatan ku sugan Nairobi ayaan jeclahay inaan ka waraysan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya haatan ay ku sugan tahay iyadoo ay soo baxeen warar cusub oo sheegaya in la bedelay gudoomiye maxkamadda iyo gudoomiye kale isla maxkamadda rafcaanka oo lagu bedelay niman iyagu dhalasho ahaan ka soo jeeda Hargeysa ama gudoomiye hore maxkamadda Somaliland sidoo kale Cali Daacuun waxaan ka waraysan doonaa shirkii dhawaan ka dhacay Turkiga ay ka qayb galeen dowladda federaalka iyo maamulka Somaliland iyadoo aan laga qayb gelin qaybaha asal ahaan ka soo jeeda ama arrinta ruqsaysa ee Maakhir iyo Khaatumo sidoo kale shirkii ka socday baarladooda ka socota xarunta baarlamaanka federaalka oo lagu wafagurayo shirkii wasaaraha Soomaaliya oo soo galay Puntland iyo hawlo fara badan oo xasaasi ah siyaasi Cali Maxamed Axmed oo loo yaqaan Cali Daacuun ayaan khadka telefoonka isagoo Nairobi ku sugan ku soo dhaweynaya madasha 60 Cali ku soo dhawo madasha 60 aad baa lagu soo dhawahay waana mahadsantihiin aad Cali mahadsan tahay casuumadda aad naga aqbashay inaanu waraysi ku galayno madasha 60 bal xaaladda guud ee Soomaaliya adoo soo koobaya marka hore hadda xamar baad ka timid Nairobi oo ku sugan tahay adoo soo koobaya xamar iyo waxa ka socda saddex sannadood iyo 5 bilood Soomaaliya waxay ku jirtay political crisis khalkhal siyaasadeed ayay ku jirtay oo marba dhinac ayay ka dheeliyeysay waxaana ugu wacan dastuurkii ayaa lagu dhaqmi waayey oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanku ka yiri aniga dastuurkani itabri maayo markaa 3 sano iyo 6 bilood aan soo sheegay khalkhalka siyaasadeed waxaa keenayay arrimo siyaasadeed baan lagu dhaqmaayay mar maamul goboleedyada madaxweynuhu la macaamilayay mar baarlamaanka ayuu la macaamilayay mar baarlamaankii bay kala quusteen oo maryo dhiig la kala furteen khalkhalkaa siyaasadeed baa muddadaa lagu jiray ilaa maanta ay soo gaadhay in la eriyo oo sifo sharci darro ah lagu eriyo gudoomiyihii maxkamadda sare hortayda waxa yaala gudoomiyaha maxkamadda waanu soo noqon doonaa hadda xamar waxaa ka socdaa la yidhi doodo iyo muran fara badan oo golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya u dhaxeeya waa maxay doodaha ka socda xamar hadda ka socda maxay yihiin baarlamaanku wax walba shilalka isdigtaa lagu qalaa baarlamaanku iyagaa dastuurkii laabay iyagaa awoodoodii u ansixiyey niman la yidhaahdo madasha maalintii ay ansixiyeen oo ay yidhaahdeen madashu hawsha ha soo wado bay nimanku dastuurkii laabeen awoodoodiina laabeen marka waxa weeye hadda waxa ay ka doodayaan kuwii ay awoodooda siiyaanna waxba aanay qaban qoraalka heshiiska ay aad aragteen ee aan madax iyo majabtoona lahayn bay keeneen markii ay keeneenna ra-iisul wasaaruhu baarlamaanku u soo gudbiyey si loo akriyo waa la garan waayey wax laga saaro waa la garan waayey wax lagu daro waa la garan waayey maxaa yeelay waa heshiis siyaasadeed dabadeedna waagii baa hadda ku baryay baarlamaankii dabadeedna waxay ku leeyihiin baadi laga maqnayd ayaa noo soo noqotay oo gacantayadii soo gashay waa in heshiiskan Cumar Cabdirashiid keenay guddi loo saaraa laguna saleeyaa dastuurka doodan hadda socota ma u malaynaysaa inay baarlamaanku aqbalayaan heshiisyada in Cabdirashiid la soo galay dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ka dhaxeeya ee ku saabsanaa 4.5ka iyo in kuraasi ay lahaayeen dad deegaanada ka soo jeedo leeyahay Maakhir iyo Khaatumo oo Cabdiwali Cali Gaas u saxeexo oo ay mustaqbalkooda siyaasadeed halka laga tago baarlamaanku aqbalaya ba kula tahay nimayo idinku Mareykan baa joogtaan aniguna waxaan joogaa Muqdisho iyo Afrika oo yan Muqdisho ay lafteedu waa Afrika baarlamaanka waa ka xogogaansanahay waa baarlamaan habaar qaba waa baarlamaan masaalix shakhsiya dangaara u dhisnaa oo u taagnaa wax wadaniyada ma aanay lahayn xasan sheekh maanta iyagaa halkaa gaarsiiyey iyagaa dictatorship ka dhigay iyagaa kalitaliye ka dhigay xasanna aad buu baarlamaanka u bartay ka kursiga doonaya waa yaqaan kan wasiirku xigeenka doonaya waa yaqaan kan tobanka kun doonaya waa yaqaan
كشك الدولة يوايقان كقوفة وإنه نقول عدوايقان حسن إيا بارلمانك حسن بارلمانك بدية سلبب قلت الضلاتة يشنتو حسن ولما يقانين مركا دوتاسو إلي سعون دوتو إيالي سعونين ومدنا شيدة لكن لبا قضب عن الداعون يباش عالم كوبا أي كذا كينا يا ماشا إن هشيسكي مدشة لقاطه سي دورشة لوغلو إيو إني بارلمانكو لي ما كان أول أو وحي أي كسار كريانا أي كساران وحي أي كبريانا أي كبران أو أي لي ما كان وهم معقولة لكن يوتن إيو أغص أو نغصو هاي تفوده أنت أكبر يسأل صوماليا الحسن لما شفته برلمان كان لما شفته عمر عبد الرشيد لما شفته وإن بيهوغ الكروب طورسه بعد 2016 أغسطس علي سيدا رسعته صدح بلوضة وهري دولة فدرالكا إيا بارلمانكا إيا دمانتيد با مقعان دولة إيا الصوماليا حتى كديسان دورسودن واسودو داي مدحوينه maanta waxa uu bedelay gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya saddex bilood iyadoo hadhay awoodda inta leeg xaq ku keenay waa maxay sababta xilligan timi in gudoomiyaha maxkamadda oo kaliya la bedelo iyo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maandayskiisii ay wax ka hareen bikulli ixtiraam bikulli taqdiir waa keligii taliye waa dictator weeye dastuurka waa laabay sharci u banaynaya inuu eriyo gudoomiyaha maxkamadda sare ma jirto waxa i hor yaala codobka sagaalaad awoodda garsoorka 105 106 107 108 109 109 haddana 109 haddana intaan internetka kala baxdaan meel ay ku taalo inuu madaxweynuhu eryi karo gudoomiyaha maxkamadda sare ma jirto sida qura xilka lagaga qaadi karaa waxa weeye xubnaha golaha garsoorka oo 9 ka kooban way soo eedayn karaan gudoomiyaha maxkamadda sare markay soo eedeeyaan oo eedu ay ku cadaatana madaxweynaha waa u gudbin karaan kolkaasaa madaxweynuhu dabada tallaabo qaadi karaa laakiin tan uu maanta sameeyey article ma cuskan oo qodob ma cuskan oo xeerka u banaynaya ma cuskan oo mid u fasaxaya ma cuskan ninkaa waan eriyey buu yidhi ayaana kuu sheegaya sababtuu ku eriyey waxaa lagu jiraa xilligii doorashada kaambeynkii baarlamaankaa la galay xildhibaanada isagaa u sarreeyo guddoomiyihii maxkamadda sare ah waxa u muuqatay in xildhibaanada lasoo xuli doono inaanay khayr u ahayn xasan sheekh inta caydiidilka xanaf uu joogo taasaa waxay keentay markaa inuu caydiid eriyo dabadeedna mid kale oo sacad yoonisa oo hargeysa joogi jiray uu keeno ciddii u keentayna iyaga gudahooda lagama foga cali sidaad carabka ku dhufatay gudoomiyaha maxkamadda waa la eriyey maanta waxaana la keenay gudoomiyihii maxkamadda Somaliland isagoo 7 cisho ka hor hargeysa jooga iscasilay miyaa la oran karin xiriirka Somaliland iyo ka dhaxeeya dawladda federaalka waa qaab maamul goboleed oo kale waa arrin ay siilaaya iyo dawladda iyo isloog yihiin labada maamul meesha ka dhisan ma la oran karaa arrinta maya lobin si caydiid loo eriyo baadigoob baa loogu jiray in caydiid nin ay isku reer yihiin la helo ama Suudaan ha joogo ama Hargeysa ha joogo ama Kuala Lumpur ha joogo ama Nairobi ha jooge caydiid mushkiladda caydiid uu madaxweynuhu ka seexan waayey waxa weeye caydiid baa igu madax adkaaday markaa mid ii jilicsan oo ii saxeexa xildhibaanada
isaaq waa inaan helaa baadigoobkaasaa lagu helay dabadeedna ama kuwa xamar joogaa ha tilmaameen ama kuwo kale oo reer muqdisho ay isfiqileen ha tilmaameen ama kuwo suudaan ay wada dhigteen ha tilmaameen ama saarax cabdulqaadir ha baadi doonee sidaasuu ninku ku yimi yaa muslima oo caydii qofkii aad ku bedeli lahayd xaggaad ka keentaa ayaa geed sare iyo geed hoose loo maqnaa markaa keligiiba ma aha suldaanaa hadda lagu maqan yahay kuweenaa lagu maqan yahay kuwo kalaa lagu maqan yahay qof xasan sheikh u odeeyaa la rabaa qof kale lama rabo cali waxaa jirta in dhowaan maamulka somaliland iyo dowladda federaalku ay shir ku qabsadeen turkiga ay ka qayb galeen iyadoo shirkaasi aanay ka qayb gelin dadka kasoo horjeeda jiritaanka somaliland ee asal ahaan kasoo jeeda maakhir iyo khaatumo shirkaasi qaabkee buu u dhacay hadduu dhacayna ma ku raacsantii wixii kasoo baxay kaabeed buu ahaa wax ka soo baxayna ma jirin wuuna fashilmay yuusuf garaad waad ogeedooda b b c duu ahaa hargeysa xidhiidh buu la leeyahay wuu tegi jiray nimankaas balna halkaa laysku arko oo dabadeedna la yidhaahdo niman yahow nimankii xasan sheikh bisa nimankii u odayn lahaana waa idinka rabnaa intaas shirku ma dhaafsiisnayn la aqal walaa agtar maxaad u malaynaysaa markaa mustaqbalkaasi siyaasadda soomaaliyeed ee aan dad u dhown daloolin oon taariikhda waxba ka aqoonin ay ka arriminayaan maalin walba sidii soomaaliya dib laysugu keeni lahaa arrimahaasi arrimo qalmo ma yihiin bulshada mise seed u aragta adigu aragtidaada ahaan walaalow soomaaliya cudurku waa soomaali dawaduna waa soomaali soomaali wadaniyadii way diiday soomaalidii dawlad ma rabto soomaalidii wixii dhibaato soo gaadhay waxba waa ku qaadan weyday soomaali allahaw sahlo hebel mawqalma iyo heblaayo mawqalanta arrinku waa dhaafay soomaaliya qabrigii siyaasadday gashay dhexday uga jirtaa qabrigii siyaasadda ilaah ka soo saarase waa leedahay waxaa jirta dhowaan dagaal baa ka dhacay maamulka galmudug iyo dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya shirno hadda dhowaan waxa lagu qabtay oo ka qayb galay ninka isagoo hogaamiye galmudug iyo ninka jubbaland hogaamiye axmed madoobe iyo cabdi cumar iley shirka siduu u dhacay maxaa kasoo baxay sideebu dagaalka maxaa sababay maxaad u malaynaysaa niyo shirka anigu horta waluma hayo laakiin waan maqlay dagaalka axmed madoobe inuu tegayna waan maqlay cabdikarimna inuu tegay waan maqlay horta waa inaad ogaato soomaalidu inay tahay daaqsato mar hadday daaqsato tahay federaal ma qaadan karto waa laysku dhacaya ama ceel baa keenaya ama shaki baa keenaya ama waxbaa keenaya isku dhacsadu waa jiraa dhinaca etoobiya iyadu dawlad bay leedahay waxa aan dawlad adag lahayn waa soomaaliya marka أضعف الإيمان مصلح بين القبائل أما استعاف الله ما سلف أيوم بينيشا أتغين وحن لين قوة الصومالي إلى بيقى صوماليات خبين قوة تبتغل شوغانا إلى خبين لكن صفقة تبها السجود عينه وماشي وانا تغير وانا صوب المي ما كان وحن أركاني عبد الكريم وعذابة كدقايا أولي بسفي عبان وشو أفكرني وانا كيسيني أرنتها لكن انت عن دورة صوماليات وحوب لأبير آلي تشيرين أبير قف كستوحي نقولناها هلب بسل قف إنك همرنا يا مسجد قف إنك بقى يا مسجد قف إن حق دوري يا مسجد قف إن احترام يا مسجد محايا أطلع بالسلوية صوماليين waxaa jirta deegaan ahaan aduu waxaad ka soo jeedaa gobolka sanaag siyaasad ahaanna inta badan waxaad wada socotaan maamulka khaatumo ee cali khaliif uu hogaaminayo dhowaanna waxaa lagu heshiiyey dowladda federaalka ee baarlamaanka cid walba ay ku heshiiyeen in codadkiinii kuraastiinii iyo dowladdiinii aan cidina aqoonsan laakiin laydiin qoro oo cabdiwelgaas idiin qoro haddii cabdiwelgaas idiin qoro maxaa tala meel idiin taalla idin adeer horta su-aashaas waa su-aal fiican waxay ku habbooneed siciid cabdisalaam inaad weydiiso
waxay ku habbooneyd garaad cabdillaahi cali ciid inaad weydiiso waxay ku habbooneyd ilkajiir inaad weydiiso waxay ku habbooneyd shanta xildhibaanka ee sahlo qoosheel ka dhigtay inaad weydiiso anigu adeer siyaasi madax bannaan baanahay maakhir waa ka soo jeedaa oo waa runtaa waxa aniga kursiga ii diiday majeerteenna iima diidin dhulbahanteena iima diidina waa siciid cabdisalaam iyo talweynaha qaarkiis oo oran waayo war ninkaasu miyaanu waxay nala lahayn maca daalik sidaa ay tahay arrintaa iyada ah ee heshiiska ah ee ku saabsan in laga soo qoraayo garoowe horta cidda aan la rabo inay qeexdo oo aad kala hadasho waa nimanka aan soo sheegay aniga ra'yigayga waxaan leeyahay buur waxaan leeyahay bannaan waxaan leeyahay dhow waxaan leeyahay dad haddaan tashan waayo oo maamul samaysan waayo oo aan noqon waayo qof madax iyo majale nin waliba waa ii talinayaa waana ii tashanayaa waana iga qaadayaa waana iga xoogayaa maxaa inoo diiday oo dadkaa u diiday inay shahaadada karaan oo ay yidhaahdaan waxbaanu samaysanaynaa oo ay yidhaahdaan ummaddaanu ka mid nahay oo ay yidhaahdaan dad jira baanu nahay intaaba waa lagalayahay niman baa ingiriiskaa ka towtowlo oo xasan soomaaliya la yidhaahdo oo yidhaahdo annagaa cidaanna raacda mooyaane cidaanu raacaynaa ma jirto xaggeedaa dadku kugu raaci jiray xaggeedaase dadka aad ku lahayd haddaadse dadka lahayd iminka maamul samayso iminka tasho cidina kuu talin maysee waataa kuraastaadii aad leedahay waa la qorayaaye marka adeer su-aashaa iyada ah waxaan ku soo koobayaa dadkaas maanta xilka hayaa weydii anigu xil ma hayo ninkaan laysugu tageen la dulmiyey baanahay waxaan jirta in dhowaan u hadlay corneyl la yidhaahdo indhayare oo ka hadlayay deegaanada maakhir gaar ahaan dhulka buuraleyda ereyada oo uu sheegay inuu ciidamo urursaday oo uu diyaar u yahay markan inuu talada beesha aad ka soo jeedo uu wax ka bedelo arrintaas sidayd u aragtaa ma soo dhaweynaysaa mise waad kasoo horjeedaa iyadana allah ya waaba maxamuud cali shira qabrigii ka soo baxay war waxaana ogeyn baad ii sheegaysaa war meeshaasi taariikh maxamuud cali shire ka horreysay ma lahayn taariikh ka dambaysayna ma leh hadduuse indhayare sidaa yidhi waxay la mid tahay baarku yidhi maxamuud cali shiro qabrigii ka soo baxay siyaasi cali daacuun waxaa jirta deegaanada aad ka soo jeedo ee maakhir waa dhul beero leh waa dhul dekeda leh waa dhul aad moodo inay deegaanka soomaalida inteeda badan dhulka ugu quruxda badan lagu tiriyo mar haddii idinku aydan waxba qabsanayso xaqu ma lihidin marka inay puntland idin maamusho wax idin qabato walaalow meesha waxaa ku yidhi agoon baan ku ogahay agoon haddee agoontii ay ka baxeen oo ay dad noqdeen oo ay tashanayaan oo ay tala yeelanayaan oo ay maamul samaysanayaan waa ragraga haddii aanay ahayna hilibkaa bisil ee midna xagga ka soo gelaya midna xagga ka soo gelaya midna xagga ka qaadanayo midna xagga ka sheeganayo weeye waxaa jirta siyaasi cali daacuun in kooxda kale ama maamulkan cali khaliifo hogaaminaya iyaguna kala qaybsanaan fara badani ku jirto oy somaliland joogaan ay puntland joogaan oy qola khaatimo joogto qola federaalka joogto labadaa reer ee hadda walaalaha ah deriskana ah waxna ka dhexeeyaan dhul iyo dad ka dhexeeyaan miyaanay ku qumaneen xilligan inay la somaliland iyo puntland iska kala raacaan mar haddaanay diyaar u ahaan inay gudahooda wax qabsadaan wal horta alkhaatuma adeer way jirtaaye adigu ha gardaraanin magac ahaan bay u jirtaa beesha caalamku way aqoonsan tahay adigu adeer ha gardaraanin ha iska jiro khilaaf siyaasadeed ha iska jiro khilaaf qabali ah waxaasi ha iska jireen laakiin waxbay samaysteen gudihii dalkiina way joogaan cid xabad cid ku damayn kartaana ma jirto qolada somalilandna horena waa lula hadlay caawala waa la hadlaya waa somalilanday dalkii waa idinka maqan yahay hargeysa iyo burco ma aha dadkiina wuu idinka maqan yahay
kuraasta aad ku fadhidaan kadega oo dadkii la heshiiya British Somaliland protectorate xuduud bay lahayd xuduudii ma joogtaan idinka intaasaa Somaliland leeyahay wala Puntland waxaan leeyahay war haddaydnaan waxba tari karayn sool iyo sanaag war haddaydnaan ciidan geyn karayn war haddaydnaan calaf geyn karayn war haddaydnaan haddii laga ku rooyahay biyo geyn karayn waxba idin tari mayso cali daacun waa Puntland cali waa Puntland cali waxaa jirta inagoo waqti gabagaba ku sugan oo barnaamijkeena aan jecelahay inaan aad kugu mahadnaqo barnaamijkeena wuxuu ka soo baxayaa waa madasha 60 oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta badan lagu wareysigana waxaanu wareysi xasaasi la yeelanay siyaasi Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cali Maxamed Axmed oo loo yaqaan Cali Daacun cali waxaa jirta in dhawaan maamulka Puntland ay dagaal dhex maray kooxaha loo yaqaan al-shabaab gaar ahaan dhinaca bariga inta badan Garacad iyo Eri deegaanada dhinacaasa in badan oo muddo 17 sanadoodna waxaynu maqlaynay in buuraha galgala ay degan yihiin al-shabaab 3 saacadood baa lagaga kilingareeyay ama lagaga sifeeyay deegaanada Garacad iyo dhulka maxaa galgala looga sifeyn waayay haddii ay jiraan al-shabaab su'aashan waa su'aal wanaagsan waxay ku xidhan tahay hadba dadku sida uu u dareemo digta 3 saacadood adigu aad sheegtay lagaga sifeeyay dadka waxay dareemeen inay dib u tahay tan galgala aad sheegaysidna anigu waan maqlaayo ma aadage dee malaha dib baaray ku hayno dadku dibtidaanay dareemin adigu haatan cali ma u diyaartay xilligan inaad kasoo qaybgashid baarlamaanka cusub ee Soomaalida ee la dhisi doono dhawaan wamiyo kii ka horreeyay Siciid Cabdisalaam baa iga reebay kii kale ka horreeyayna Cabdullaahi Yuusuf baa iga reebay kii kale ka horreeyay Xasan Abshir baa iga reebay anigu nimankaas halkaa jooga ee Garowe iyo Gaalkacyo iyo Laasqoray nimankaasa uu marba qolo ii soo kacsataayo ay qooqdaayo dabeedna tiraahdaa war ninkan lagu dari maayo baarlamaanka haddaan calaf ku leeyahay doorka waan heli haddii kalena waxaan u malaynayaa sidii kuwii hore inuu cid uu sababo doono in aan u aanayn doono in ciddaasu ay iga reebtay sida iminka aan kuu tilmaamayo kii hadda ka horreeyey Cabdiweli Cali Gaas baa ra'iisul wasaare ahaayo waan u tegay oo waan u sheegay calaa kulli xaal calaf kuma yeelan ninkii gabyey wixii loogow uu yidhi laguba jooge maanta waan rajaynayaa haddii aan waayana cid baan farta ku fiiqayaa iga reebtay وهاجا waxaan ku siinayaa daqiiqada u dambeysay waxa tahay siyaasi sidii aad carbaabtay madax banaan maxaa deegaanada aad ka soo jeedo iyo bulshada Soomaaliyeed aad u sheegi lahayd adoo daqiiqada ka faa'iideysanay waqtiga ugu yar Soomaali waxaan u sheegayaa wixii aan hore u sheegay waan madasha sigisti ka sheegay oo VOA ka sheegay Soomaaliya qabrigii baad gashay siyaasadda Soomaaliya waad baabaadeen Soomaaliya waad gumowdeen Soomaaliya badda idin cuntay والصومالي قبيل كنعة وصدا السودامة والوحفي عن دورتا والإلهي كيابة انت صومالي بالله ديقان كأنك سوچيدين مورسانتي وحلايهي إفي آخر من المسجد الثاني يلا بدا الدار المدن كبيرة بعض ما سنتهي نجيسيال وحوها سياسة الصوماليات واللي هذا علي محمد أحمد واللي يقانو علي داعون وان ku wareysanay khadka telefoonka isagoo jooga magaalada Nairobi dhawaan ka soo noqday magaalada Muqdisho barnaamijkan wuxuu si toos ah ka imanayay madasha sigisi waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo gudoomiyaha madasha Asad Naasuudi iyo dhamaan maamulayaasha madasha 60 waa anigu Cabdi Cabdi sidii caadadu ahayd waxaan kaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh